السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقعد طبعا حال لها عبد الرحمن عبد الله حاجي دب عصر الشيخ عبد الرحمن ليبو يرى إنكستو وأنا مارتي dadka أنا كشخصين waxaan ahay nin Soomaaliya oo jecel dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba ku dhashay Soomaaliya ku barbaaray Soomaaliya wax ku bartay dalka Soomaaliya kaga soo baxay jaamacad Somali National University and college-kii qiimaha badnaa ee la oran jiray Lafole Education ayaan ka baxay major-kaygu wuxuu ahaa major in agriculture beeraha minor biology ayaa ii ahaa waxaan ahaa raggii ugu dambeeyay oo ka qalin jabiyay jaamacadda markii ay dawladda Soomaaliya ay burbureysay shaqo ahaan waxaan ka shaqeeyay iskuuladii Soomaaliya ayaan ka shaqeynayay iskuulada Muuse Galaal Ismaan Gadraagi Caalimire Lafole High School iskuuladaas dhan macallin ayaan ka soo noqday dawladdii dalkeena markii uu burburay qiimaha iyo qaayaha badnaa waxaan macallin ka noqday dalka Yemen oo muddo 10 sano aan macallin ka ahaa dugsiga sare kabacdina halkaan iyo Mareykanka ayaa nimid oo aan sayidana aan macallin ka noqday Columbus Public Schools magaalada Columbus masaajidiyada طبعا ayadana maartay intaas waan ka khidmeynayay oo diinta Ilaahay waan u hilinayay meelo badan ayaan imaam ka soo noqday wax kamid ah Seattle wax kamid ah Spokane wax kamid ah magaalada New York halkan Columbus oo masaajidiyo badan ayadana ka aasaasay sida Masjid Ibrahim Khalil iyo masjidka hadda aan joogo marka waxbarashada diiniga ah intaas tan maadiga ah way isla socdeen jaamacadda hadda ayadana maartay islaamiyana waan ka qalin jabinayaa masterkiina haddana waa isaguna maartay waan guda galay oo inaan dhawaan ka qalin jabiyo ayaan rajeynaya haddii Ilaahay ku idmaayo walal su'aasha ugu horeysaan rabo taariikh nololeedka ka bacdi inaan ku weydiiyo waxa weeye maadaama cilmiga diinta taqaana jaamacadna aan soo baratay oo cilmigan kale ee dunida ama cilmiga kale aad baratay sidee baad u aragtaa mustaqbalka Soomaaliya sidee loogu sameyn karaa nidaam ku salaysan shariicada islaamka walaal gacaliyo waad mahadsan tahay horta Soomaaliya waa dal aad u ballaaran Soomaali weyn baan anigu horta aan aaminsanahay oo la qaybsaday 1884 ay qaybsadeen gumeystayaasha bilaa naxariista ah cadaawadda u haya shacabka Soomaaliyeed kabacdi xilligaas aynu ka soo gudubnay qaybsiina la qaybsay kabacdi war xasuusantihiin duulaankii ay nagu soo qaadeen halgankii daraawiishta ee dheeraa kabacdi labadii gobol ee hartay oo xurriyadda qaatay dagaalka aynu galnay 77 yani kabacdina gaala iyada walaala ah kubanaas dheer Ruushka Yemen iyo Jarmalku ay u soo hiliyeen ciidamadeena ku isaas ku soo maaratay jabay galbeedku aan isku haleynayno ayaguna noo ballan qaaday hub iyo saanad iyo dhaqaalaha nooga goostay oo ardayda ayaguna ka dagay kabacdi waa ku jabhadaha soo aasaasay dawladdeena waa isaas ku burburtay ilaa haddana qaybinayo kooxdiimeedyo iyo qabiilooyin madba magac wata iyo shaatiyo kala duwan ay noo aasaasayaan in iskuna baabi'inayno haddana maaratay ay maaratay tartankii ay ku jiraan si Soomaaliya ay maaratay u sii taatureyn lahaayeen walaale Soomaaliya waa dad walaala ah Soomaalidu isku dhaqan isku diina isku rabbiya isku nabiya isku qibla ah ehel ah sokeeya ah isku sinji iyo farac ah kulligood hadii Ilaahay ku idmaayo isku luqad ah oo ka duwan qowmiyadaha kale ee dariskana la sii Itoobiya oo 80 qowmiyadood ah laakiin Soomaalidu waa halkaas qoys walaal macaan marka inay isfahmaan midoobaan heshiyaan dawlad istaan wax wada qabsadaan waa sahlan tahay waxayna ku sahlan tahay dadkii oo muslima oo dad ahlu tawxiid ah oo dad Ilaahay rumaysan oo nabigiisa Muhammad alayhi salatu wasalaam subhanahu jecel xabiibkii yani nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jecel diintooda macaan jecel raba janno inay galaan kara badbaadaan naar marka walaalle taas waa wax sahlan xukuumad iyo shacab iyo madaxweyne mid la xukumo iyo mid wax xukuma wadaad iyo waralle caalim iyo caamo kulligeen sharciga Ilaahay inaynu u hogaansano ayaynu ku badbaadaynaa taasna waxaan anigu alla yamaana waa wax nabigu sallallahu alayhi wasallam oo uu yiri حتى ترجعوا إلى دينكم إلى أظن قطان دينتيني نبت قليمه لسان دولي درحمو كما بحسان سلعي سحرير كما بحسان
يعني waxa kan dhacayna nabigeeni baa noo sheegay in cadawgu ay isugu kan yeeranayaan tadaaca calaykum al-umam ummadaha isugu kan yeeranaya sida maaragtay kuwa wax cunaya markay xeerada ay maaragtay isugu hareerayaan saasoo kale ay u cunaan cuntada saasoo kale marka badeeni baa la qaybsaday oo lagu tartamaya Kenya waa u jeedaa reer galbeedkii oo dhanba waa fadhiyaan birigeeni baa lagu tartamaya macdanteeni baa lagu tartamaya gaaskeeni baa lagu tartamaya beereeni baa lagu tartamaya kalluunkeeni waa lagu tartamaya dadkeeni baa gaajaysan oo silic iyo saxariir iyo gaajo u baaba'ay oo waxay liqaan la hadii la gudmahayo marka walaal laga caliye taas danteena iyo culimo iyo caamada kulligeen waxaynu ku walaaloobi karnaa waa diinteena islaamka waxaana tusaale hadan ku siiyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adduunkan intuusan ilaahay u soo dirin seebo caalamku waxa ka bacdina seebo noqdeen markii caalamka arab seebay ay quraysh say ahayd see yani dhulkan middle east loo yaqaan seebay ahayd dad baqtiga cuno la gumaysto oo two super powers yani Persia iyo Romaanki ay u taliyaan bay ahaayeen dad salamiyada iyo dhagaxda caabuday ahaayeen dad gabdhahooda aasa ay ahaayeen dad waxay ahaayeen hadii ay ku idmay islaayo oo xuruub eeliya ku jira oo ninka xoog badan ninka maskiinka oo dhaco oo boobo oo maaragtay xaraan ku nool waxay ahaayeen dad dilaagu qabaa'il soo baabi'iya oo 100 sano ilaa 120 sano ay dagaal maaragtay u socday waxaana xaliyay oo xal u noqday kitaabkii ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo tawxiidkii iyo la ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah ila ay gaareen way yu'thiruna ala anfusihim inay isu dooraan naftooda ka dooraan oo walaalahooda u dooraan haweenkii isu furaan xoolahoodii maaragtay ayagoo gaajaysan walaalahooda siiyaan saasay gaareen qabaa'ilkii kala duwanaa ee isdagaalayay marka Soomaalidu waa walaalo waana ehel waana rixim waxayna kasii weyn ayagoo muslim ah oo ahlu tawxiid ah waana sahlan tahay hadii aanan isyeelyeelinin qof kastana inuu asagu taas ka shaqeeyo ayaa la rabaa aynu isbedelno in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay qom bedelo ya isu ay isbedelaan okay waxaa jirta xisbiyo islaamiya oo ka sameysmay wadanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka weydiiyo xisbiyada waxa kamid ah al-ittihad waxaa jiray leeyahay xisbi la oran jiray oo kasii horeeyay waxaa sameysmay maxaakiimta islaamiga ah oo damcada inay islaam ku dhaqaan Muqdisho lista iyo agaarkeeda haddana sheekadu waxay maraysaa al-shabaab maxaad adiga fikir ahaantaada ka qaldan baad kula tahay oo ay marnaba ugu guuleysan lahayn ururada islaamiga ah inay dadka mujtamaca ka dhaadhiciyaan in lagu dhaqmo dhaqanka islaamka miyaad u aragtaa diinta islaamka dadka Soomaalida gudaheeda in xabad macnaa ama dagaal lagu wajaho mise waxaad u aragtaa sida hadda carabta iyo wadamada isbedelaya in nidaamkan xisbiyada ah in lagu dayo oo dadka islaamka marka xisbi nabad oo hubaysnayn halka jabhada ka u tartamaysa oo aragtaa arrimahaas walaal khayr allah ku siiyo waa su'aal aad u qiimo badan una baahan jawaab iyo xal u baahan hadii la kidmahay waa cudur jira u baahan xal iyo daawo u baahan sababta hayba inaga dad muslima oo Soomaaliya oo isku dhaqana oo diin oo adduunka ay ku yartahay dad caynkaas oo kala ah way ma jiraan waa yaani dhulka ugu macaan cimilada ugu macaan xoolo kalluun bad biri wabiyo yaani khayraad ilaahay hadii la ku idmaayo marka waxaas dhammaan la ku xasdaya waxaa siidar iyadoo ay nahay dad ahlu tawxiid la ilaaha illa allah taas marka waxay keentay in cadawgeena ay naga faa'iideysanayaan oo ay adeegsanayaan طريقه اما يعني منهج قديم او ولقد اي ادكسنيان او ضرب الاسلام بالاسلام اسلامكي ان اسلامكي لو غراعه martaasi adeegsanayaan oo seeway mar qabaa'ilkii baa la isku garaacaya mar way ka tagay markay socon weydo koox ayaa la aasaasaya oo la isku garaacaya inagu dad muslimiin diinteena ma ogola inaynu koox ma ogola ninka wadaadka ah ee dhihi kara maanta inaynu kooxo iyo firqooyin u kala baxano baa banaan waa ninka ma banaan walaal waxaa weeye diinteenu diin midnimo wactasimu bihablillahi jamii'an inaynu midownaana la faray maxaana loo diiday wala tafarraqu in aynu kala tagno oo koox u kala baxano oo magacyo la kala baxano oo dariiqooyin iyo manhajiyo kala duwan aynu qaadano walaal diinteenu ما وافقنا نبينا صلى الله عليه وسلم أهل السنة طبعا يعني والجماعة يعني أيقنا كل جنا السنة لكن يعني علماء هذا يعني لو يقانو أيقنا يعني إنه نحسن وفي عنتها marka walaal rasuulkeeni baa noo sheegay oo yiri sallallahu alayhi wasallam aniga gadaashay kiino noolaada oo arki doona ikhtilaaf fara badan iyo koox fara badan iyo yani madhab fara badan iyo yani magacyo fara badan nabigeena noo sheegay alayhi salatu wasallam halkuna waxa weeyaan yani si uu noo sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam fa alaykum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin in loo noqdo oo loo noqdo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka walaalahay taas aan leeyahay
يا ولا ليال ونقض حقا كولا لوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله كبح كوحا يفرقوينك أو كل حزب بما لديهم فرحون كوح والبوحي لذا أنا صوت ظاهرة تكرنا وأهل النار تكرنا ومارتي قالت تكرنا ولس قالي سينيا بعيال السبحينيا يعني ما ولا ليال ولا لاتين الباتين سكياتين مذوب عدونا يسن كفايد سن xaaladda si adaan ku weydiiyay xaaladda siyaasadeed hadda Soomaaliya waxaa jirta in wadamada reer Yurubka ama Mareykanka oo kale ay isku dayeen 1993 ay ku soo magaca United Nations ee Soomaaliya tageen caalamka qaarkood wadamada islaamiga la socdeen waa ka soo baxeen wadanka Soomaaliya waa laga tagay ciidan Ethiopiana galay waad ogtahay 2006 2007 xilligii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynimada loo doortay hadda waxaa la keenay ciidamo Afrikaan oo ay ka mid yihiin Ugandese waxay ka mid yihiin Burundis ciidan kale oo wadamada islaamka ka socda ma jiro waxaa hadda wadankii gashay Kenya Ethiopia maalin walba way gashaa Soomaaliya marka waxay noqotay meel wadamo kale iyo dad kale isku wada dagaalamaan maadaama adigu wadamada islaamka ah ay wax ciidan u soo direen ma kula tahay inay wadamada islaamka ciidan ay sidaas kuwaan oo kale u soo diraan waxay kula tahay in United Nations oo dhan iyo ciidamadan Afrikaanka oo dhan Soomaaliya faraha laga qaado mise waxay kula tahay ciidamadan hadda wadanka jooga sax bay ku joogaan marka laga say kula muuqataa sida ciidanka Kenya oo hadda Soomaaliya soo galay maadaama arkina madaxnimada Soomaaliya oo ridoolo والله هرتا إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيه يعني ما أنت هرتا ور حقيقة دي مال الله ترتمه أما كرسي اللغة فريست أو ما أنت يعني نين رجع أما نين شرف له يعني وده هلك أنا كفريسان هيا أو أنا يوم مرة تواي كان أركع أو مدحويني هبل هلا إنه يعني ما قد يطل ما أنت نينك شرف له ولا لو حلا جرب إنه يستجدل كيس السوق وبتبادل هيا الهلا ما أنت هداد هرتا تحس عن كذا عجلة هداد في سد qoys walba iyo qabiil walba iyo koox walba intii doqonka ahayd baa horjooga u ah marka waxyaalaha wada aniga waxa ka mid ah yani khasab ma anigu inaan kursiga ku fariisto laakiin waxa khasab ah inaan aqli iyo talo iyo midnimo iyo nabadda Soomaaliya say ku dhalan lahayd ilaahay idinkiis aan ka shaqeeyo dadka gaashaysan oo silcay oo saxariirayaan say guryahoodii iyo nabad ugu helayeen ilaahay idinkiis ilaahay ila garab galo waxaan ku dhacay walaal waa doqonimadeena inaga walaaloob weynay inaga heshiin weynay inaga danteena garan weynay رجل بنا شريك إسبيتو أيام وقلا ضدكي شلك وقيبصدي أو أبيالك أو ويالك جميستي أو دلي أو حري أو دعي أو بابي أو معركة كتخلصي أو مساجدي كبربرية أو كان إثيوبيا شلين الأديك سنين يا مانتي ما نينكي كقيبني يا قرن كود صيا نينكي NFD كايست أما الصومالي قلبت كايست ميا قرن كود صيا أديك ملول بكيني إثيوبيا وحيلات تاجيين كريسديه بتاجيين وعليين دم كريستان أنا هاي كريستان نمدي بخطر لويه هاي أدونكم نقصوا جارة وأنا كان أدلة كل الإسلام بنا لا درا هي خطر بانجيس كأفريقيا كتشوجنا كان يسد هلا بدباديو إنك مسلم كأينا واجر الله عليه إنك وحنا الكرب أمريكا نور بدل كيس استقالة أنا قم ما أنت يمئين أنت أطلع مدحوين رايكم مدحوين إقدر مليه ميجي أنت أطلع أبليكيشن ديبتوني مرة هي ميجي وايكر أنا كودا يمئي زناوي إن أنت قلت يا الله واعي كانوا صارت أيهم ما له دلك أنا إسكال دلك أنا جاي أديك إسكال دلك تارت وإني نكرن دلك يا إسكال أنا جاي أديك إسكال تلادي سنة هيك جودا وعيني كجودا أنا جاي أديك أمي ده يصير أقربها يسيسنا شيء حل نومها ترانا نوم دنا نوم الصودان إني هذا نجا توران سيب بابيان سيب بربريان ما أنا وحكي للصومالية السود وحنا دقني ما كوب إلا باتن كسروا أم بربرينو إلى إيه هذا United Nations إيجاد أميسوم أفريكان يونيون بلاي ينكسر غير يوروب يعني وناق نوترا نوما تريان وناق نوما هيان وناق أنكويل كرنا كأن حبد الست ودات كه قلبيات كفرية كأن وقوي كفرية كإثيوبيا صار راعية كل جين إلى نمد علماء عام إن قرباس قضية نقن كإلا حرمية سياسي إلا حرمية كان ميليتري إلا حرمية كل جين يسحر جماعة يسقبسنا مني ما حكوا قبسنا كمان إننا أنا حقبسنا كمان عيد كلنا يانا وحكسوين مركا فكرة الآيس عيالنا ومقولنا عيالنا وها Soomaaliya إلهي بإله سبحانه وتعالى ضدنا إلهي وأصل صارها هي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم حتى كتجيستان حقي إن أدوه اللسان أو هم تأوه اللسان Soomaaliya إلهي كوكلوا كانسان كوكلوا إذنك إن كفي عنه ثم لا يكونوا أمثالكم أذلة على المؤمنين قوة دلكود يددكود يدينتود أدر عسن أوش العسن بإلهي كان سنة رحماء بينهم كوا سنة حريسته بإلهي كان سنة سبحانه وتعالى إلهي نكوا سنة قام الدبور
سؤال شو قدام بس يكون يديني ما دام إن أقوياء يعني تودن كي وقصوا مقنطة هاي مقالة هذا كل شوكتي كرامبوسا رق بدن بقى كتجي أو ودن كي هذا سي معنيه وعاويان ودن كي يدك دلكي محد قرب جوكت صومالي ذا أقوياء هذا له معلمين تيله قاتير تيله إنجنير ردي له دليل ردي له ودن كي كسو تجي محد طلعها وهذا كان وقدريسا إن ودن كي لو نقضوا وحلو قبض والله يا خير الله ينسيه أباره ذكينا يدلكينا وهذا جرمتين هيوينكين هبريرين أبتيالكين ولاليين قبليهن الصوماليات وهذا جرمتين خير الله ينسيه جرمتكي أباره هتوجلينا هكو علينا شركتها كان أجانب تعمل إنجيوينا يعني كتوك سنة يا عالم كالصومالية يا شعب كالصومالية وحق بيننا أبار كسارينا كاتش كسارينا نيروبي نفدي أرساوا يا كمبالا ولا يا الحل كسوينينا نو ولا بدرهم كدر أو الشيلين كدر أو دولار كدر أو سنت كدر أو بدبات الدل كاجي كوا قربها كتجها هي أو هذا هي حاجة أو تشجوين كيكوراس تكرر سنة هي عروتو دينا هل كان فلوستان بكو قادنا هيان أو الدور هي إني مرتاجر أي كسر نقدان والله واسون كنت شايفان دولتي هراء عبد الشهيد علي جريد دولتي لندن أنتي برمج على جريد تي أوهايو واساس وردت كجودها تشوجا فديها ككعين قرب تشوجتنا حتى غيرته أيقونا يسنقون كوا النول على وشه ده يفرش جوده أما مالحنا كرسي أي أنت فريستان مهيجي فلان أي سكت جدانه أنا شهادة وطاقة يعني مهيج وسان يلو كان يلو تشجعي ورب ما وردلك إنه حقبته وركيد اختاره وتج وركي معلم هو تج وركي سياسي هو تج وركي قضية ونقاء وركي كان عستاء ونقاء وربدني أينو فلانو وربقى إنه كلمات كلا صباحنا ومراكب تكسرنا وربيرهن أينو قضنا وروديده إني أينو دور كتشحنا معرة دي لا يكون مساس مني ورشدة يجنحسي هلا جاي يعني دقاليه إني معرة عنكم بعنا ومدة إنه حطرنا إسكولات كفرنا جامعة هلا فرا إسبتالات أينو لسنا قدي لا يكون معي قعمها أينو سقبسنا قعموا يشربوا يحكوا جويان فرق لينا فورم نقدر وحاسب لنا وحاسب يبقى نقول الله كعبس يدعد هدي لا يكون إدمها يهرم لله بقى قبيل كان حق إسكادقنا أو كتقنا قبيل كوا قرن قبيل كوجو لستي قبيلات أما شرف كوجاري ما هينو نولا واحد حقطها ولا النماذج السلام النماذج لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نتاس قادنا شيء حال نومه شيء ضن نومه شيء أرحن نومه إنك ولا لا إنك أرحنا إنك رئيمة إن إسقدرينه إسحرمين وإسقورنا إسو تنازلنا وكل سبوعي ما له كي من حوالين نقول وكالة نقول أنا ديار وين كاغا كعين أنا ديار وين كودا يا أديك هذا حقبنيس هذا حقبنين أنا حقبنيه يقول حقا